الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد وآيات اللحية لباتمين نكبل علينا سورة آل عمران. قال الله تعالى إلهي بأوحي قل وحات إلى نبي محمد اللهم يا الله إله يوم مالك الملك وحول بإله إسكاله تؤتي الملك أود يا مدحتني ماذا واحد سيسا من تشاء عدة دونت وتنزع الملك أود يا مدحتني ماذا واحد كسيبتا ممن تشاء عدة دونت وتعز من تشاء عدة دونت إله يوم واد كراميسا واد ماموستا واد شرفتا وتذل من تشاء عدة دونتنا دل بات كريدا بيدك الخير كعنت هذا كتشرا خير ولمي إنك على كل شيء قدير إلهي وحول بواد كرتاه تولج الليل في النهار هبين كادحك لسان مالنت وتولج النهار في الليل مالنكينا وحد دحك لسان هبينك وتخرج الحي من الميت كنا البات كسو صارتا مد انتي وتخرج الميت كل انتينا وحد كسو صارتا من الحي كنول وترزق وحد أرساق ذا من تشاء عدة دونت بغير حساب هذه آن حسابنا أو بديي لا يتخذ المؤمنون تتك إلهي الرميي كردغان الكافرين قال أولياء هو قعلي سكايا من دون المؤمنين مؤمنين تأيغوا آن كردغان حكتو ومن يفعل ذلك قفك السدا سمايا قال دويست مؤمن كلفوغيا فليس من الله كما سقنا ولاية إلهي في شيء وحبا xiriirkii ilaahay waxba kama haya kaas ilaa an tattaquu inaa cabsataan mooyaane minhum xaggooda tuqaatan cabsi wayuxadirukum allahu nafsah ilaahay naftiisuu idinka digayaa cadaabkiisa inaydaan isku dhicin oo aanu ilaahay idinla dagaalamin waila allaahi almasiir ilaahay xaggiisu ahaaday meesha loo noqonaya qul waxaa tidhaa nebi maxamedow in tukfuu maa fii suduurikum haddaa qarisaan waxa laabihiinna ku sugan oo dadka oo dhan ka qarisaan aw tubduuhu ama aamuujisaan boo dadku arkayo waxaa bannaanka soo dhigtaan yaclamhu allah ilaahay baa ogaanayo isku sii boogiye wayaclamu wuxuu ogaanayaa intiina ka sii weynba maa fi samaawaati wamaa fi lard waxaa ku sugan samooyinka iyo waxa dhulka ku sugan wallaahu calaa kulli shayin qadiir ilaahay baa wax walba kara subxaana wa tacaala waxba ku adkaanayn waa aayaadkiina barayay ee aada inoogu balballaarinayay ilaahay awoodihiisa subxaana wa tacaala dhinac walba iyo ogaanshihiisa iyo cilmigiisa iyo ammaantiisa faraha badane isagu ehelka u yahay ee aan cidilo lahayn markaad arrimahan aada u ogaateed aada u akhrisateed aada u fahamto ilaahay baa qalbigaaga ku weynaanaya subxaana wa tacaala cid waloo ka soo hadhayna qalbigaaga way ku yaraanaysa ilaahayna waad weheshanaysa waanaad ku kalsoonaanaysa waanaad ku yidi diilanaysa waxaasoo dhan baa ka soo baxaya waxyigu waxaanu ina baraya markaynu aada u dhuuxnayno aada u dhadhamino arrinta u horeysa waa taa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sababaha ay yuhuudda iyo nasaaradu u xaasidi jireen waxaa ka mid ahaa nebigani reer banu israa'iil kama imanin ambiyada nebinimada iyo madaxtinimaduna reer banu israa'iil bay ahaan jirtay marka isagoo aan reer banu israa'iil ka imanin siduu u noqon karaa rasuul iyo hogaamiye diineed dee ma noqon karo wax cusubna maahee sidaynu qisadii daaluud ku soo maraynay waa arrintay daaluud ku caarideen ay kaga hor yimaadeen wa naxnu axaqu bilmulki minh madaxtinimada annagaa kaga habboon oo ehel u ahayn bay dhahan marka waxyaabaha u horeeya ay ku diidanaayeen waa rasuul carbeed bay asbaabta aayaddu ku soo degtay weeye laakiin waa caam marka nebi maxamedo hadday sidaa yidhaahdeen adiguna sidan ugu jawaabo waxaad u sheegtaa adduunkan iyo arrimihiisa inuu ilaahay gacanta ku hayo mid waxaasida iyo mid xoog sheegta midna gacanta kuma hayo marka maamulkiisa iyo madaxtinimadiisa ilaahay isagaa cidduu doonayana siiye cidduu doonayana ka qaada cidduu doonaya ciseeye cidduu doonayana dulleeya afartaa arrimood weeye تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء
arrimaha gacantu ku haya subxaana wa tacaala innaka calaa kulli shayin qadiir inaad saasay tahay markaad saa aaminsan tahay ilaahay baad ka dhur sugaysa haddii wax dhacaan iyo haddii wax isweydaartaan iyo haddii cid laga adkaado iyo haddii nasri uu kaa dib dhaco ilaahay unbaad ka war sugaysa waxaad leedahay wuxuu yeelayba xikmad buu u yeelaye kolley arrimaha isagaa go-aaminaya oo laga war sugayaae isagun ka war sugo ku yidhi diilo wixii asbaabana la kaalay almulk marka maalikulmulki waa isaga un subxaana wa tacaala dadku maalikiin way noqdaanoo dee waxaa la yidhaha insaanu maalik kada qofka bani aadamkii wuxuu leeyahay dadkiisa wuxuu macnaha dunyadiisaasuu leeyahay dharkaasuu leeyahay waxyaabahaasay sheegtaan qof dadku melikna way sheegtaanoo mid meel ka madaxiina madaxtinimu sheegtaa melik buu idhaah laakiin kii xoolaha lahaa iyo kii xukunka sheeganaya labadaba maalikulmulki baa dusha ka sii haysta markaa dadku lama bixi karaan maalikulmulki iyo melikulmuluuk midna lama bixi karaan boqorka boqoradu waa ilaahay maalikulmulkuna waa ilaahay lahu malakuutu الsamaawaati wاlard isagaa iska leh magacyadu ilaahay gaarka u leeyahay subxaana wa tacaala kii sheegtaana waraxda ka jabayo in yarna wixiisu ku ururayaan ku fashilmayaan milkigu ilaahay bixiyo dadka wuxuu ugu dhiibaa imtixaan maaha mudnaanay leeyihiin iyo ammaanay leeyihiinna waa imtixaan markaa dadkii marka lagu imtixaano loo dhiibo sidaynu horeba usoo xusnay qaarkood waxay u arkayaan maqram qaarkoodna maqnam kuwa u arkaya maqramka maqrabku waa gashi iyo dayn macnaha waa ammaano uu ku gashiyoobi karo oo uu ku gafi karo ayay u arkayaanoo way iska tiiriyaanoo way hagaajiyaan milkigaa intuu ilaahay ku aaminayo madaxtinimada ah uu u dhiibay ee ammaanada ah qofkii sideedaa u aaminaa wuu hagaajiyaa oo xilkeedu ka soo baxaa waa ka nebigu calayhi salaatu wasalaam asxaabigii abidar ku leh innahaa amaana wa innahaa khizyun wa nadaama waa ammaano oo waxaa ka dambaysa un in laga murugoodo oo qofku uu ka ciishoodo marka uu ku gefo dadka qaarkoodna maqnam bay u maleeyaan maantay kuu soo martay bay idhaahdaan oo mulkiga markay helaan iyo madaxtinimada awoodda cilmi iyo awoodda dhaqaale iyo awoodda xukun markay intaa milkiyaan waxay idhaahdaan maantay kuu soo martae waxaa doontaba samee marka qur-aanku markuu qaaciidadan bixiyey laba tusaale ina siiyaa dadkii adduunyada milkiyey ama madax noqday qaarkood wuu ammaanaa iyo milkigoodii inay mudan yihiin oo xilkii ka soo baxeen nebi daawud calayhi salaam waa boqoradii iyo nebi sulaymaan iyo daaluut oo aynu qisadiisa soo aragnay iyo dulqarnayn awooddoodii iyo aqoontuu ilaahay siiye ummadahay ugu hiiliyeen oo diintay ugu hiiliyeen oo dadkay ugu hiiliyeen oo dulmigay ku badbaadiyeen waa milkiga iyo madaxtinimada qur-aanku ammaanay muluugtu qur-aanku ammaanay wey qaarkoodna wuu eedeeyayoo fircoon iyo namruud iyo kuwii kale iyaguna cilmiga ku kibree qaaruun iyo kuwaasina waa la eedeeyey idan markaa siinta qofkan la siiyey yuu u qaadanayn inuu mudan yahay oo la jecel yahay yuu u qaadanayna imtixaankaasu u yaallaa oo u taagan labadaa tusaaleanu qur-aanku ka bixiyey dadka qaarkood baa marka mas-uuliyaddiisa wax laga sheego ama had iyo jeer lagu dhaliilo ayay aayadda soo daliishadaan markaasa idhaha warde madaxtinimada ilaahay baa i siiye maxaa igu qabsanaysaa maxaa igu haysataa dee waxa lagugu haystaa waad ku fashilanta ama waxbaad kharibtay marka inaad isa saxdood istoosisaabaa la doonaya inaad dadka laabta u garaacdoo tidhaahdo milkiga anuu ilaahay ii gartay marka waxaan doonaba aan yeelo waa fashal taas iyo qalad laga fahmay daliilka awoodaha ilaahay subxaana wa tacaala waxaa ka mid ah waxaynu ku arkayna adduunkanoo aada u layaab badan oo felaga meeraya iyo noolayaasha awooddii ilaahay waad ka dhex arkaysa habeenkii iyo maalinkii buu isdhex gelinayaa tuuliju leyla fi nahaari wa tuuliju nahaara fi leyl si toosa arrintaa ilaahay loogala hadlaya sidaa dheh ilaahay markaad ammaanayso ummadda kalena wax u sheegaysa waxaad tidhahdaa ilaahay adigaa sidaa yeela adaa sidaa yeela adaa sidaa yeela rububiyadiisii ilaahay iyo awoodihiisii wey habeenkaad dhex gelaysaa maalinkana maalinkii iyo habeenkii baad isdhex gelinaysa siyaabo badan marka la eego kanaa dheeraanaya kanina wuu gaabanaya waynu ognog dee wakhtiyada fusuusha jilaalkii iyo xagaagii iyo gugii iyo dayrti marna habeenkaa dheeraada marna maalinka way isdhex gelayaan markaad eegto madowgooda iyo caddaankooda way isdhex gelayaan
oo kani siduu u cad yahay unbuu kii madoobaa dhex gelayaa meeshu way wada madoobaanaysa kani siduu u madoobaa madowga aynugu jirnay unbuu ku dhex libdhayaa un kii caddaa carriguba wada caddaanaya yaa caddeeyey ilaahay subxaana wa tacaala hadduu caddayn waayana cid alla cid caddaynaysaa ma jirto hadduu madoobayn waayana cid madoobayn kartaa ma jirto watukhriju alxaya min almeyiti watukhriju almeyita min alxay iyadana tii hore ay barbar taallaa waa insaankii iyo noolaha arrin la xidhiidho wey mar mid kamintu ku jirtaabaa laga soo baxayaa mar walba u fiirso haddaad iskee kaa yar khaldamaan markaynu far waaweyn ku qorno watukhriju alxaya min almeyit kii noolaabaa wuxuu ka soo baxayaa mid dhintay oo maalan dee tusaalayaal badan baa loo soo qaadan karaaye noole badan baa ilaahay uu ka soo dhex saari karaa mid nool mid dhintay baa laga soo dhex bixi karaa gaalku u geeriyeysan yihi miyaanu dhici karin ama aanay badnayn ama aanay soo jirin gaal mu'min dhalay way badantay meyt baa la yidhaha gaalka mu'minkana xayi baa la yidhaha awaman kaana xaya awaman kaana meyta faaxiynaahu bal ka warran buu ilahay yihi qof geeriyeysnaayon anigu nooleeyey waa gaal islaamay marka dee nebiyaal buu qur-aanku inoo sheegayaa wuxuu inoo sheegayaa qur-aanku gaalo mu'miniin dhalay ama xadiidka rasuulkaba ku sugan sala allahu calayhi wasalam oo reer banu israa'iil badda ninka ka soo baxay akhri mu'minun min aali fircawn iyo hadalladiisa qiimaha badan waxaa ka mida shaygaa noolaha ah ee ka soo baxaya meydka candhuufteenna yar ama had iyo jeer biyahan taranka markay halkaa yaallaan waa iska meyd aragtida insaanka wax dee aan dhaqdhaqaaqayn oo noolo ahayn weeye marka eegmada caadigaa la eegayo noolaa ka soo baxaya markaad eegto xabaddan beedka ah iyo dusheeda eegmo caadiya waxaad arkaysaa iyadoo halkaa iska kuusanoo fadhida way dilaacaysaa mid nooloo dhaqaajinaya ayuunbaa ka soo boodaya tusaalayaasha culimadu ku fasirayaan bay ka mid tan kalena waa sidaa cagsigeeda tukhriju lmeyita min alxay qof mu'mina gaal dhali karaa qofkii mu'minkaa waa xay gaal buu dhalayaa dhintay nebi nuuxoo inankiisii u baaqaya baad arkaysa sidoo kale taa cagsigeed shayga nool ayaa waxaa ka soo baxaya mid aan noolayn sida maala xabaddaa beedka ahiba dee digaagadaasay ka soo baxaysaa nool iyadiina aragtideenna ma noolaa marka dambe noolaba ha ka soo baxo waxa aad u daliishan kartaa bahashan xabaddan firida ah ama raashinka ahee la beero marka hore iyadoo iska meyta halkaa lagu ridayaa geed nool baa ka soo baxaya waxaa lagu tusayaa awoodaha ilaahay cajiibka ah ee insaanku gacan ku lahayn watarsuqu man tashaau bikayri xisaab markaa kolka aad arrintaa aragtay ilaaha awooddaa le subxaana wa tacaala isaga ku ururoo ka edebso oo aamino isaga wehesho oo weli ha kuu noqdo laa yatakid ilmu'minuuna alkaafiriina awliyaaa min duuni lmu'miniin munaasabadda ka dhaxaysa muwaalaadkii ilaahay oo laga warramayo iyo awoodahaas iyo rububiyadaysaasoo laga warramayo yaa ehel u ah inaad isaga kaashato ood weli u noqoto oo aad weheshato ilaahay subxaana wa tacala ilaa awoodahaasuu leeyahay ka wax ku tari karaa waa kaas gaal xunoo nacasa maxaad kaga ururaysaad ka daba cararaysa awliyadii ilaahayna ha ka ordin ilaahayna ha ka ordin ee ilaahay wehesho awliyadiisana wehesho oo garabso muminiintaana ehelkaaga laa yatakid ilmu'minuuna alkaafiriina awliyaaa min duuni lmuminiin si kale haddii loo eego hadduu ilaahay yahay kaa rabbigaas hadduu yahay isaga ayaa xaq u yeeshay cibaado iyo in nasri la weydiisto iyo istiqaafo iyo isticaana gargaar oo dhan muminiintu iyay ka dhiganin gaalada xigto iyagoon ka dhiganaynin muminiinta walaalahooda ee kale hadday dhacdo taas muwaalaat اlkaafir wa mucaadaat اlmu'min gaalkii shisheeyahana aad xigto ka dhigato kii xigtada ahaa ee mu'minkaana aad shisheeye ka dhigto aad fogeyso falaysa min allahi fii shayin qofkaas falaysa min wilaayat اllaahi fii shayin wilaayadii ilahay waxba kama haysa awliyada ilaahay kama mid ehda ood ka baxday wey kole dad awliyada ilaahay tuurtay ilaahayna ka tagtay wilaayadii ilaahay iyo diintiisii waxba kama haysa marka halkaa waxaa layna barayaa inay jiraan waxa la yidhaahdo almuwaalaat walmucaadaat alwalaau walbaraa caqiidaday ka mid tahy qofka mu'minka ah
عدو حريرين ينو يقانا عدو كدرك ينو يقانا وهناك فرق بين الموالاة والمعاملة موالاتك قفك الششايها إنad gacaltooyo siiso waa la diiday laakiin mucaamalo wanaagsan inaad siiso waa la amray muwaalaadkii halkana lagu joojiyo de muwaalaadku waxa weeyaan waa qofkii oo ehelkaaga waa qofkii oo xuquuq badan idinka dhaxayso waa qofkii oo aad jeceshahay waa qofkii oo aad taageerayso wax badan weeye muwaalaatul mu'min ama muwaalaadkii gacaltooyada ka dhaxaysa dadka muuminiinta mucaamaladu laakiin in adduunyada la wada shaqaysan karo maslaxad la wadaagi karo qofkan loo samafali karo la soo dhaweyn karo wixii islaamku ogol yahay waa mucaamalo wanaagsan taas kiyaan xataa dil mutaysana gaalka ah inaan la taaban lagu xadgudbin la dilo aan la dilin waxa soo dhan waa mucaamalada wanaagsan suuratul mumtahina ayaa ilaahay labada qaybood ba aad uga hadlay laa yanhaakumullahu can alladina lam yuqatiluukum fi ddiin walam yukhrijuukum min diyaarikum an tabarruuhum wa tuqsiduuhum an tabarruuhum wa tuqsiduu وتقصدوا إليهم إن الله يحب المقسطين انت انا كوي ان wax dhib idin ku haynina inta soo arimood cadaalad iyo ihsaan u sameeysan ilaahay idin kuma haysto maxaa la raaciyay inma yanhaakum Allahu 'an alladhina qataluukum fi ad-din wa akhrajuukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaa'ika hum adh-dhalimun marka an tabarruhum an tawallawhum an tabarruhum wa la ogolaaday inaad u samafali karto wixii xaq u leeyahay wixii ihsaan aad siin karto laakiin anta wallahum baladi inaad muwaalaad samayso labada ayay dadku isku khaldaano qolana ku xadgudubtaa qolana ka gaabisa qola waxay qaataan anta barruhum wax walba loo yeelo walaal hal la yiraahdo walaalkaygiyo iyo walaalkeen qaar kalena anta wallahum bay ku xadgudbeena wax walba laga jaro wax kasto oo maarteen wanaaga marka labada quraanku sidaa uu noogu sheegay nabigana dhaqankiisu ha calayhi salaatu wasalaam ayaa loo raacay maantana waxaad moodaa muwaalaatul kufaar inay meel adag marayso oo cidda muslimiinta isugu darani waa tolkoodii intii ehelka ahaa ama qabiil ay isku dilayaan ama kursi bay isku dilayaan ama xad bay isku dilayaan soo inta ma shaqadiiba waa inta iyo hubka la isoo urursanayaba intaas u noqday marka intan ilaahay u diidaya shaqo u noqotay inay toobad keenaan dadkuna waajib bay ku tahay waxa ilaahay u raaciyay lifaaqan oranaya ilaa an tattaquu minhum tuqaa ina ka cabsataan mooya cabsi hadaa ka cabsataan waa la idin ogol yahay wax u muuqda muwaalaad tuqyadaasi dadka muslimiinta iyo ahlu sunnaha iyo culimaduba siday ku sharxayaan waxa weeye qofkii oo cadawgu uu u awood sheegto oo uu ku dirqiyo wax diin la'aan iyo gaalnimo ah sidii asxaabigii Camaar ibn Yaasir ku dhacday oo Maxamed ka gaalow bay yiraahdeen way garaaceen markaasuu dabeetana ku dhawaaqay wixii iyagu ay doonayeen nabigu yimi calayhi salaatu wasalaam markaas sidaas ay iga dhacday buuriyo wax gaalnimo igu qasbeen baan sameeyay in caadu facudbu qalbigaaga sideed ka dareemaysa mudma'innun bil iimaan inuu iimaanka ku xasiloon yahay baan dareemayay laakiin daa way qasbeen haday ku celiyaan marka iskiga celibu qalbigaagun baa marka la eegaya suuratu nahl nawaad akhriyaysa man kafara billahi min ba'di iimanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iiman walakin man sharaha bil kufri sadran sasa loo kala qaado qofka gaalnimo lagu dirqiyo laakiin qalbigiisa iimaanka uu ku degan yahay wax dambiya ma laha kaasi waa qasban yahay waxa laakiin eedaysano ilaahay cadaabi doonaa qofka laabta u sii daaya gaalnimo marka tuqyada illa an tattaquu minhum tuqaa ina iyagii ka cabsataan mooyaane oo marka la iman kartaan ama ku dhawaaqi kartaan wax gaalnimo ah ama u muuqda muwaalaatul kaafir taasi goorta la fasaxay waxa weeye waqtiga uu qofku qasban yahay taana culimadu aad iyo aad bay uga wada hadlayaan iyo asxaabta ridwaanullaahi calayhim waa qofka marka gaalnimo lagu dirqiyo Abu Darda waxa uu leeyahay wajigayaga waa asxaabigi mararka qaar waxa dhacda wajigayaga inaanu farxad uga muujino qaar qalbigayagu nacdalayo markay duruufi timaado ibn Abbas wuxuu leeyahay inama tuqya fi alqawli la fi al'amal tuqyadu waxa weeyaan qawlka oo mararka qaar kood aad ku dhaafi karta dib ku soo maray laakiin qalbiga iyo amalka ma aha si kala hadii loo dhigo waa xaalada daruura
daruuraduna dee islaamku wixii xaaraana islaamka dhexdiisa qofka way u banaysaa laakina daruurata tuqadaru biqadariha haddii wax lagugu qasbo qadarkiisu waa inaad ku egaato wixii lagu qasbeen waa inaan allaa tadhara minka qariinatu likhtiyaar waa inaanay kaa muuqan wax doorasho iyo ikhtiyaar aad leedahay wixii cidda ku dirqiyeysa ay tidhaahdo unbaad odhanaysa haddaad wax ku dardarto dee doorashaa jirta waana arrin gaalnimadan un ku gooniye maaye way iska caam maalan waxaa lagugu dirqiyayaa inaad wax bixiso inaad xaaskaaga furto inaad hadal xun tidhaahdo waxa weeye wixii lagu laqimuun baad odhanaysa waxba kuma daraysa waxa uu leeyahay ibnu mundir masaladan marka uu ka warramayo culimmadu waxay ku ijmaacaan isla waafaqeen inuu yahay tuqyadani ikraahi qofka lagu dirqiyayay gaalnimo qofka ereygaa ku dhawaaqana gaalnimo lagu xukumi maayo waxa taa ka duwan markaa tuqyada ay isticmaalaan nimanka loo yaqaano shiicadu oo usuushoodii iyo arkaantooda ay raacaan bay ku jirtaa oo waxa weeye iyadu waa nooc munaafaqad ah nooc iska munaafaqada weeyo markay muslimiinta kale la joogaan amaba ahlu sunnaha la joogaan amaba gaalo la joogaan wax tuqyo la dhawa isticmaalaan waxaaga qalbigaysa kaga hayso wuxuu dadku doonaya ama yeelayana iskala yeel ayaa la odhanayaa mar hadduu qalbiga kugu jiro waa iska dhag halkaasay kugu dhantay waxaa laga yaabaa ka muslimkaa inuu iskala wado ka gaalkaa inuu iskala wado maxaad u waday dee waa tuqyadii marka waxay leeyihin tuqyadu waxay la mid tahay xagga sida salaadoo kale ay la mid tahay bay idhaah marka waxyaabahay ku dhaqmaan si aan meeliba uga soo xidhminba mid walba ula mushaaxaan mabdana loo cadaynin tuqyadaasaa ka mid a marka tuqyada sunniga iyo tuqyada shiicadu way kala duwan yihiin ay kutubahooda ku sharxaan ay aad 12 asal bay leeyihiin raafidadaas ama nimanka imaamiyada la yidhaahdaaba labadooda qayboodba ay ku sheegayaan 12 asaloo ay markaa tuqyadu ka mid tahay ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير وادقنين إلهي بقى نفتي سيدين كدقية يانو كلا دقالة بكرو كعقابي كرو هدي أديقو أو وحلقو قصبين أضح دورته وحكى الله إلهي وحسي هدي دادك قاركود لما مدبلا نقول لهايين وقلبي كان وحيكو قبصان لهايين قول كريه فعل كان وحكتاتك أموتين لهايين وابتغي ضاحونه إلهي باركيه قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله wuxuu ilaahay doonayay haddii aad dadka u muujiso wax kalena qarsanayso dee ilaahay baa ku arkaya isha dabana uunka arkaya uurka dabana ilaahay baa arkaya marka ilaahay waxa uurkaaga ku jira kala qarsoona wax ka weyn baa ogsoon iyo ciriyo dhul waxa ku sugan cilmigiisu wixii dheeri ishiisana waxba kama qarsoomaan marka digniintan ilaahay wuxuu raacinayaa waxaan lagu ogolayn waa inaanad yeelin oo ka xaraama oo markaa xadgudubka ilaahay uu diiday subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam